يا بعرتي سوجرين كأحبه قبل كبعرتي وهاي وحبة عرقتي سنة قد بقلبي تمارس كل دقنت وحمالتك دحيال ama ummadaasi haysan wata marka xilibaan dalxa dhibaatada hadda ka jirta gobolka Shabeellaha Hoose oo aad ka hadlayso maxay tahay dhibaatada jirta waxa waaye maqli jirtay hebel qiyaamana ma jiro qaabna uma noola ummada waxa waaye dawladna la garay meel ay joogto meel aan dawlad aanan joogin la gartay meel maartay jabhad maamulaysan la garay meel aan jabhad maartay maamulayna la garay meel ma aragtay marka qolo oo markaasi maga ay doonto iyadana ha ku maamusha iyadana nidaamkeeda ka shaqeynayo oo dadkaasi ay hoos tagaan waxay doonaan ha sheegtaan iyadana la garay ummadaasi waxay noqotay gelin ma aragtay waji hor leh oo cusub ayay waxay la kowsataa duruuf oo amniyad siyaasadeed dhaqaale bulsho meel waliba maartay iyaga aanan u fiyoobay marka arrimahaasi runtii saldhigiba ayaa waxay ahayd waxyaabaha badi ee aniga aan dareemayo dad iga sii maartay durugsan una yani dhundalolada gobolka arrimihiisa ee dhinac kasta iyagana ay taabanayaan laakiinse meelaha laga doonayo ee boobteeda la doonayo in laga dayo oo mar walibana iska tahay maartay qowda maqashi waxna u qaban oo ay noocaasi u dhacayso ayaa waxaad moodaa wax gobolka aanan ku ahayn wax u dhow waxaa yeelay hadeertan waxaad maqlaysaa ciidamadii dawladii oo gobolkaa joogay way ka soo baxeen هاي كوي أمسومو أيغانا ميشا هاي ميشا كسيسكونا أيغانا ويكا بحين معارضة دي دولة كسو هرجيدي ويسو قلين مالين قدر أبطر كدي واحد أركيسا مايا إذا عنا دولة داهين وعلى قرنين وماليشيات وإذا إتابحسي عنا جيرين با ميشا سيدي مايا دينا عكال قبائل باكو هرد ماينو سياسة إسديدة ما قبل كاسي كجيرا يوحلا منها يعني قبل كبرك وحو اسكان نقضي قريبا أيو يقفله عيد وطريسة لما يقان dhexdiisii maamul fiican kama jiro wata marka dhibaatadan yaa lagu eedeynaya yaa ka mas'uul ah ee arrimaha hadda aad ka hadlayso ee dhibaatooyinka ah ee ka jira gobolka Shabeellaha Hoose waa mar maamul goboleed baa maartay hadda maartay lagu maartay sidkii South West la yiraahdo doorkii South West meesha kama muuqdo oo iyaga la sidii karo dadkaasi waxay noqdeen dad maamulkaasi looga arrimiyo oo wax allaala waxa iyaga ay tirsanayaan ama ay doonayaan ay u baahan yihiin halkaasay maartay arintooda iyo taladooda ay ka go'daa oo ma jirto dawladii baa meesha iyada baraaw ilaa ay dhulkaan oo dhan iyada annaga maamulno ay maartay dhinacay ka leedahay oo tiina ma muuqato oo maanta afgoy ayaa maartay dawladdu aanan la dhihi karin ayada ka taliso oo marka loo fiiriyo tuulooyinkeeda iyo dhammaan ilaa iyo gobolka marka la gaaro inta weyn iyo qoryoolay iyo dhaxayso ee janaalkii u dambeysay ay tahay iyo baartay birweyna idaacado idinka ka sheegteen ee dawladdu gacanta aysan ugu jirin marka marka Shabeellaha Hoose yaa ka taliyo in la isweydiiyo way yaa se maamula waa in maartay dadka horta marka u horeyso dadka ka hadlaya ama dadka arintooda iyaga umada doonaya inay soo hor fariistaan waa kuwe oo markaasi ama hadii dambi ka jirana laga xisaabtami karo ama day doori ka taagan tahay laga munaaqashoon karo marka gobolka ciidiba ma aragtay maanta lama dhihi karo ayaa wuxuu u yahay ilaahay ka soo magan marka cidii timaadasay ugu taliso iyo siday ayada u maamulato ayaa wuxuu u noqday maartay mid victim u ah sidaasayna umadaasi ilaahay subhanahu wa ta'ala arintooda ay ugu bandhigteen wixii mustaqbalka iyo dana wixii alla u qorabo laakiin maanta aniga ma qabo nidaam iyo dawlo iyo wax maartay u eg wax la dhihi karo gobolkaas ayaa caawo loogu hagaagaya taladiis ay ka go'daa inay jirto umaleynaayo dalha ma lii kara gobolkan saameynta ugu weyn waxa ku yeeshay dagaalada ku soo laalaabtay qabaa'ilada u dhaxeeya gobolkaas ka dhaca why not maxay u noqon weyn hadda waa taa ku sheegay gobolkani hore yani waxa taariikhda ugu sheegay in 60kii markii ka horeysay meeshii Talyaaniga ee maanta isaga u bartilmaameedsanay
dadkii Soomaaliya ee ku go'ay kali asaayna iyo keenkii asoo saari jiray sababta hoose inay beeradkeedii ee xoog uu ka qaatay umad fara badan milkiyadoodii uu kala wareegay maalintuu wadanka ka dhaqaajinayeen beerahaasi sida ay ahaayeen wuxuu gacanta u geliyay kuwii Talyaaniga maartay ayaga uu ahaa daba dhilif kadibna dhulkaasi ay ku yeesheen ayaga dhaxalkii Talyaaniga maartay ka turjumayo sidaasi ahaa maartay gobonnimadii xataa halganka wax kulaha dagaalkii dhagax tuur 15 baabuur si wax badan uu ku celcelin jiray maanta aan ognahay Xaaji Shukri meel badan uu ka sheegay gobolkii kaliya ay ka yimaadeen ay ahaa waxa loogu abaalguday waxay ahayd markii gobonnimadii ay dhalatayna inamankii baro Talyaaniga ah inay ay gacanta ay ku dhigaan beerihii waaweynaa mooskii ay bilaabeen inay sidii Talyaaniga kale ugu doofiyaan dadkii deegaanka ay xamaali kaliya ay ka dhigtaan kacaankii markuu bedelay dhul beereedkii waa 2 sano wixii aan beeralka qayb ku soo rogay oo asagana dhul boob ay galeen markii dawladda ka tirsanaa ee dhulkii ay boobayeen boqolkiiba 30 oo ahaa kii Shabeellaha Hoose dadka masaakiinta laga qaaday mashaariic fara badan ee aan magdhow laga siinin ee waaweyn inta laga sameeyay oo kii Liibiya lahaa oo Libsoma ka soo qaaday oo kii Crash program lahaa oo kii maartay beeraha waaweyn ee booliska iyo asduubta iyo wixii oo dhan kulli gobolkii dadkiisa beeraha looga qaaday ay ahaayeen dan guud haddana maanta kulli dan gaar ah maartay lagu wada fushanayo aan ognahay aan dawladdu wax shaqa iyo wax talaabo ayada ay u sii qaaday aan jirin ama walaa dadkaasi magdhow xataa aan laga siinin weli xataa aanan dhicin xataa kuwii kala asaayay ee lagu baabiyay dawladda Talyaaniga wax weydiisanayo oo dawlad ahaan ee dhaay ayada aan ognahay Talyaani inay magdhow ay siisay Liibiya oo naga hanti badnayd iyo Ethiopia iyada aan muddo yar joogtay xataa wixii ay ka qaadatay barigaas loo soo celiyay waxaad moodaa gobolkaas inuu Soomaaliya dadka ku nool aad ahaan inaan loo tirsan maanta waan ognahay jabadii dagaalkii ay ka soo gudbeen wixii ka dhacay waxa ilaa ay hadda lagu muransan yahay dawladdii ciidankii joogay sidii maamulada ay u dhacayaan soo imaadka ka jiro cid maanta maalin inta go'aan cadinta ay gaarto oo dadkaasi wax qabad iska badbaay ee gobolkaas ay uga gudbaan mushkilada ay hayso ugu dambeyn marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa la gudboon maamulka Koonfur Galbeed ee gobolkan ee hoostaga iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya حالة كدوانا لها ملح بيلك سرية صراحة يبالي مدحونا الجمهورية ايا افقوية قاري يسوى اي باعثي اسلا السعودان وليبا مدحونا كوفر قلبات waxaa meesha markaasi sii socday waliba aan ognahay wasiirkii gaashaandhigga waxaa socday taliyayaasha ciidamada ee kulli aan meesha ka marnay wax allaala wixii dhibaato iyaga ummadda ay ku hadlayeen idaacadaha welinkii ka sii daayay ee meel waliba laga dhegeysanayay ilaa ay hadda waxa waaye nasiib darada jaalla yacni weli ma aragtay ma jirto ummadaasi wax haba yaraatay oo dhinaca ma aragtay xaggooda weli ma aragtay u dhaqaaqay ama wax ay tirsanayeen wax ay ka horaayeenba wax uga qabtay intaas u sii dheer ma haysaa wax horumar ah ee la dhihi karo gobolkaasi waa ka jira ama waxbarasho ha noqoto ama horumar wax soo saarka xaggiisa looga sameeyey waana gobol badii webigii beerihii xataa yacni la dhihi karo garoomada ku yaalaan iyo eerboorada ka soo kow dekadaha uu leeyahay haddaad fiirisid ceelka gaaska ee Soomaaliya ee maanta ku jira ee ugu ballaaran wuxuu ku yaalaa Shabeellaha Hoose degmadiisa afgooye maartay degmadiisa meel ka mid ah haddana degmadaasi iyo dhulkaasi ee dhammaan adiga u jeeda deegaamadaasi kulli meel hal wada loo sameeyey oo dhagax Allah ka dhigay oo beeraha ka soo baxa oo ummadaas wax soo saarkooda markuu u soo go'o ay ku keensadaan inaanan jirin ee maartay afgooye soo gala xamarna waxa maanta soo gala 90% ama qudaar ha noqoto ama badar ha noqoto ama wax fawaakiihda maartay cambaha iyo muuska iyo maartay babayga iyo isbaandeeska qaraha iyo maartay ilaahay kuma samadiire maartay canuuniga la soo dunka isaga xaqiisa ay ka soo galaan dakhliga ugu weyn ee cashuuraha dawladda meelaha wadada ka soo gashay ugu ballaaran ee aase ka sama waa xawaay waa maartay waa gobolkaasi kan soo xigana uu yahay maartay Shabeellaha Dhexe marka haddana يعني كمان يعني موقعات أهمية الدولة إن أي سياسة أنت خلق الله المعشرة إن قبل كلا قدنا يستخيرين ويان إن الله دنا يوري معين ما أنتي سياسة قدسا مركتها مركوها يبقى أنت إن لسوي بيو وحب قبل كاسي سراء وتقاري أيضا أن أبنى إن إحدى سنفر كيسا قبل كتتكون ولإن يبقى الله سمي النظام عادالة قدسا وأبقى إن ذاتك لفتر خسيسو قبل كما أنتي
si ilaahay maartay dartii waxa meesha ka jira dulmi ah in loo abaaro haday siyaasad tahay dulmi siyaasadeed haday tahay dulmi bulshadeed haday tahay dulmi dhaqaale iyo mid amniyeed in laga dulqaado loo baahan yahay